السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمان ددوينها كحرا بامبي موسيقى اوفيشيال والسلام هذا وين ما انت برنامجك waxaa marti noogu ah macallin aad ugu firfircoon dhanka muusiga oo muddo badan ku soo jiray muusiga oo xirfad dheeran u leh macallin Yusuf Abikar Nuur sidoo kale waxaa meesha fadhisa Farxiyo Cali Cusable oo kamid ah gabdhaha ugu firfircoon baandada ama kooxda sidaad ka wada bogateen shalay waxaa meesha marti noogu ahaa macallin Cali محمد علي oo kamid ah macallimiinta kooxda baambeeda sida idinka balan qaadnay waxaan idinka balan qaadnay maalin walba inaan keeni doono macallimiinta mid ah oo keeni doono maantana waa u jeedin ustaadka weynaa macallin Yusuf Abikar Nuur ayaa marti nooga ah oo waqtigiisa qaaliga noo soo horay waa kaaga mahad celinaynaa macallin waqtigaaga noo soo hortay wuxuuna sharaxaad naga sii doonaa qaabka turumbadan horta turumbadan magaceeda waxaa la dhahaa saxophone alto macallinkana isaga sharaxaad naga siin doona qaabka loo yeeriyo iyo inta sano oo ku soo jiray baashan muusiga isaga warbixin naga siin doona macallin ku soo dhaw waan dhawahay horta marka ugu horeyso baashan waxaa la yiraahdaa saxophone alto marka sidaad maaragtay u wada taqaanaan waxay ka mid tahay aaladaha maaragtay heesaha lagu garaaco waliba heesaha live-ka ah marka magaceedana waxaa waaye saxophone alto marka shalay waxaad arkayseen saxophone tenore oo ah saxophone baasa middaana waxaa waaye saxophone alto marka haddii maaragtay horta barashadeeda horta waxay ugu qaadatay muddo maaragtay ilaa iyo 6 bilood inaan barto sidaad la socoteen saxophone-ka waa aaladaha ugu cod macaan oo ugu wanaagsan oona heesaha fanka Soomaaliyeed waliba heesaha live-ka ah lagu garaaco marka xarfaheedana waa kaas muusigu waxay ka bilaabataa doodeeda waa kaas halkaasay ka bilaabataa shanta farood ku qabanaysaa saasa u qabanaysaa xarfaheeda u jeedaa marka hore waa sii daay 10 farood waa laga shaqaysiinaa 10 farood waa laga shaqaysiinaa markaan ka soo bilaabo noodka ugu horeeyo oo turumbadan muxuu ahaa ama qofkii baranayo inuu arko waa doodan halkaas ay ka bilaabanaysaa waa u jeedaan fariiridaas ay ka bilaabanaysaa fariiridaas doo ah doo re ay noqonaysaa markaan doodaas ka soo kaco waxay noqonaysaa re maxaan ku xigo mi fa sol la si do waa kaas todobada xaraf waa intaas dooda hoose ilaa dooda kor marka runtii turumbadan waa turumbada maaragtay loogu jecel yahay cod ahaanteeda ayada iyo macnaha dhammaan saxophone-ka maxaa la dhahay turumbada loo yaqaan saxophone-ka intaasoo nooc u kala baxaa saxophone waxaa jira Briton mid waxaa jira qoorta saas u laaban waxaa loo yaqaanaa Briton midda shalay aan arkaysayna waa tenor middaana waa alto waxaa jirta marka soprano waxaa jirto gallerin insha allahu tacaala waad arki doontaan insha allahu tacaala waxaan rabaa marka turumbo kale waxaa jirto ayadana aad u macaan waxaa jirto iyadana corneta la yiraahdo kulley macallinkeeda noo imaan doono berri insha allahu tacaala waan keeni doonaa macallin Yusuf Bile Xoble marka runtii macallin marka baashan macallin Cali shalay meeshaan marti noogu ahaa sharaxaad wuxuu naga siinay turumbo oo tan oo kale laakiin waa ka weyneed aad iyo aad marka turumbadaas iyo tan isku mid miya barashadeeda isku mid ma loo yeeriyaa mise waa kala dhib badan yihiin maya barashadeeda waa isku mid barashadeeda inta xarf oo maaragtay oo baasada ay ku taalo ayaa midaan ku taalo isku mid waay laakiin waa ka yartahay xogaa yar waa ka yartahay le mooyee waa isku mid barashadeeda marka matalan qofka markuu ama tenor barto ama alto oo barto guud ahaan waxaa la isku dhahaa saxophone marka qofka heer wuxuu gaari karaa marka oo altadana garaaco baasahana uu garaaco marka ali marka wax yar muxuu ahay
adigoo deesan dhibkaaga wax yar hees qaacma nooga sii kartaa okay baroodo yar runtii codkeeda aad u macaan yahay baashaan ها marka waxaan dhihi lahaa dadweynaha waxaan dhihi lahaa macalin muxuu ahay horta dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan oo anaga Muqdisho joognaa oo Muqdisho ku sugan horta muusiga kooxda baanbeeda markii muusiga la garaacayo aad ay ugu farxaan aad ay u jecel yihiin mararka oo maalmaha farxadaha oo ciidda oo kale markii muxuu ahay dadweynaha kala qayb qaadatiin farxadda munaasabooyinka markay socdaan munaasabooyinka marka dadweyne badan oo waxa arkaysaa kale marka barnaamijyo badan ay oo muxuu ahaa waxa jirto way markii ciidaha la gaaro qofkii arkay marka dadka dadweynaha waa soo yaacayaan meel qof gurigiisa ka soo baxo kii shaqadiisa ku jira kulli waa jecel yihiin dadka qaarkiisa muxuu ahaa waxay ku leeyihiin muxuu ahaa baasha noo daara muxuu ahaa baasha daara waxay u maleeyaan dadka marka miimir inuu ku shaqeysto baasha horta baashan muxuu ahaa meelaha markaan xafladaha aan tagno dad badan oo waxaan aragnaa baasha dhahayo baasha bateri ma ku jira charger ma ku shaqeysaa marka runtii dadweynaha horta way la yaabaan markii qofka uu si fiican u barto ama heesaha muusikada uu ka dhawaajinayo horta baashan wax charger la yiraahdo horta ma lahan baashan waa tubo aariyadaada qofka bini aadamka aariyadiisa ayuu ku shaqeeyaa waxaa kaloo jirto ayadoo la aariyanayo haddana ayadoo baterigeedu waa muxuu ahaa aanjadan waaye aanjadana bateri u ah inkastoo bini aadamka uu afuufayo haddana aanjadan haddii meesha laga waayo eber waayo iyada dhan ma shaqeynayso marka runtii aanjadana annagu ma haysano makiinadii noo sameynaysay marka anigu waxaan dhihi lahaa dadweynaha dhalinyarada siiba dhalinyarada gabdhaha baashan caalamka gabdhaha yeeriyo gabdhaha si fiican ugu dhawaajiyo ragga wayba ku yaryihiinba markii caalamka Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Jarmalka iyo markaa fiirisid marka waxaan rabnaa gabar Soomaaliyeed inay dhowr gabdhood ayaa hadda noo qorsheysan inaan barno ugu faa'iideyno qofkii u baahan waa la baraa qofkii u baahanna waa la bari karaa meesha macnaha muxuu ahaa macallimiin badan aad joogto marka waxaan marka dhalinyarada ku go'aamay lahaa inay bartaan turbadan aaltaha ama muxuu ahaa korneetada ama baasada ama gerliinka inay bartaan dadka muusikada jecel laakiin dadka isku mid maaha qofka hadii oo isaga uu hami u leeyahay ee ka go'antaa waxaan inuu barto uu baran karaa qofkii adkaystana waa ku adkaanaysaa waxaa jira dad aysan ku abuurnayn qof ku dhashay ma jiro horta qof walba waa barta adiba waa barata macallin marka qof ku dhashay ma jiro laakiin haddana waxaa jira qof aan jeclaanaa jiro inuu barto uu jeclaanaa jirto marka dadka jecel waxaan dhihi lahaa ha ku soo dhawaadeen baanta muusik gacmo furan ha ku soo dhawaadeen waana mahadsantihiin waa mahadsantahay macalinkaas wuxuu ahaa macalin Yuusuf Abikar Nuur oo ah macalin weyn oo ka mid ah kooxda baanbeeda muusika ee booliiska barnaamijkiina waqtiga naga soo idlaaday intaas ku ekeenina barnaamijka waadna ka bogan doontiin sidaan oo kale macallimiin badan ayaa keeni doona meeshaan xiisadda xigtana waxaan rajeynayaa inuu noo imaado macallin Yuusuf waxaan rabaa inaan ku celiyo berri haddii ilaahay idmo berri waxaa noo diyaar ah nin macallinka korneetada Yuusuf Bile Xuble macallin Yuusuf soo dhawo baan leenahay insha Allah macallimiinta ugu firfircoon uu ka mid yahay haddana waqtiga naga dhamaaday waana mahadsantihiin ballanteenu waa subscribe like share comment dhiirigelin sidee noogu noqoto idinkana dhiirigeliya shareta like-ta commentiga subscribe-ka annagana waxaa ballan idinka qaadeynaa mar walba barnaamijyo idin xiiso geliya inaan idin soo bandhigno
barnaamijyada muxuu ahay macallimiinta keliya kuma ekaan doonto rubaayado muxuu ahay baambeedii oo heesa muxuu ahay wadaniya tumaayo ama heesa jaceyl wax walba muxuu ahay insha allah idinkana dhiirigelina idinka rabnaa waana mahadsantiin waa mahadsantiin